munaasabadan oo ahayd munaasabad si weyn loo soo agaasimay ayaa ay hay'adda dhawrista tayada Jamhuuriyadda Somaliland shahaadada sumataydeedka warshadaha ku guddoonsiinaysay warshadda Ilatango waxaana munaasabadan ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland mas'uuliyiinta hay'adda dhawrista tayada ganacsato iyo mudan iyo marti sharaf kale ugu horreynna waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee hay'adda dhawrista tayada Jamhuuriyadda Somaliland iyo mas'uuliyiin kale waxaana ka mid ah hadaladoodii maanta waxaynu daahfuraynaa Ilatango xafladda shahaada bixinta sumatayeedka marka runtii kulanka waxa si rasmi ah uga warbixin doona gudoomiyaha oo runtii xafladana inoo soo xiri doona inta ka horeysa xafladdu way noo furan tahay hay'adda dhawrista tayada waxa aad u soo dhaweeyay sida fiican ay u wada hawsheeda in muddo yar oo gaaban bay gaadhay inay noqoto inay samayso standards badan waxaan ku rajaynayaa ciidanka waxa samaystay kii cunnada iyo dawooyinka waxaana u sii socdaa inay wax walba soo galaya ama laga soo saarayaba ay tayadooda u samayso sumadaasi quality standards kan aynu samaysanay waxaan ka mid ahaa dadkii ka qayb galay loo yeeray markii la sameeyay oo wax laga weydiinayay standards kaasi waa standards caalamiga ah oo loogu talagalay in products ka ama waddanka dibadda ka yimaada ama gudaha ha laga soo saaray inay mid gareeyaan ama waafaqaan maanta kulli muhiimaddu ugu koowaad waxa weeye warshadii saddexaad ee Somaliland ee qaadatay shahaadadaas quality control hay'adda commissionka quality control ka inoo qaabilsan ay siisay oo ay abulfgareysay mayor ku-xigeenka caasimadda Hargeysa wasiirka beeraha wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay anigoo matalaya dadweynaha hoose caasimadda dalku waxa weeyaan waa xarunta iyo mabaca ay ku yaalaan warshadaha dalka in la hubiyo tayadooda oo productionka iyo wax soo saarkana la dul istaaga waa shay aad iyo aad muhiim u ah waxa weeyaan kalsooni bay siinaysaa muwaadiniinta ay ku kalsoonaan karaan inay isticmaalaan waxyaabaha lookalka ah ee dalkooda ku soo baxay mar labaad iyo mar saddexaad idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan ee sharafta leh ee cisiga leh ee uga soo qayb gasheen xafladan waxaan leeyahay isku tiirsanaan iyo walaaltinimo iyo midnimo intaas baa lagu gaaraa meel haddii aynu doonayno inaynu hore u soconana keliya inaynu ka fikirno sidaynu waddankeenna iyo ummadeenna aynu u horumarinahayn waxaan aaminsanahay inay tahay horumar aad iyo aad u weyn iyo heerka dalkeenu marayo marar badan baa jirtay oo aynaan waxaa haabkeedaba haynin oo aynaan kama fikiri jirin tayada shay soo degay ama shay dalka lagu farsameeyey laakiin waxay muujinaysaa inaynu horumar samaynayno inaynu dadkeenna ka baadhno oo ka hubinno oo ka xaqiijinno waxa ay xidhanayaan iyo waxa ay ismarinayaan iyo waxa ay cunayaan iyo waxa ay isticmaalayaan tayadu waxaan markhaati ka ahay bishii hore ayaa waxaanu booqannay runtii laabka ay ku yaalla magaalada berbera ee cuntada iyo dawada iyo runtii shidaalkaba waxaan aad iyo aad runtii uga tacajabnay aniga iyo runtii tiimkii meesha joogay shaqada baaxadda leh iyo aqoonta iyo kartida iyo qalabka runtii ay hayaan taasoo mudan runtii in la bogaadiyo waxaan aad ugu sii faraxsanahay intii aanu maraynay runtii dadkii ka hawlgelayay ama shaqaalihii ama saraakiishii joogay inaanaan la kulmin qof ajnabi dhammaan dadka aanu arkaynay runtii inay ahaayeen dad reer Somaliland dhalinyaro ah oo waxbartay mihnada iyo shaqada ay ku jiraan runtii aad u xiisaynaya aad u garanaya aad bay runtii noo farxad gelisay marka runtii taa waa ku dadaalo oo ku bogaadinayna hay'adda gudoomiyaha agaasimaha guud iyo madaxda kaleba inay halka dadaalka ka sii wadaan shacabku runtii kalsooni buuxdana runtii inay siiyaan laabkooda iyo baaristooda anigu ku hawleeyay runtii inay ka hubiyaan badeecad kasta oo runtii cunto iyo dawaa oo runtii dalka soo galaya gudoomiyaha shirkadda Ilatango ayaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay aad baan runtii faraxsanahay dareenkayga isku garo maanta
waayo waxaanu gaadhnay goolashii aan rabnay ama waxyaabihi aan fiksanay mid ka mid aan maanta gaadhnay aad baan ugu faraxsannahay in barnaamijkeygii maanta ama wax soo saarkii warshada Elataango la proof gareeyay ama hay'adda tayadu ay ansixisay inay tahay alaab ka sareysa alaabta dibadda ka timaada. gabagabadii waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Mukhtaar Maxamed Cali waxaana ka mid ah hadaladiisii. maanta shirkadda aynu siinaynaa ma aha ujeedkeedu xayeysiis annagu xayeysiin mayno laakiin bulshada waxaan u sheegaynaa waxay isticmaalayaan wixii bad qaba ee caafimaadkooda iyo noloshooda ku jira laakiin jooska iyaga leh annagu laakiin mas'uuliyaddu waxay naga saaran tahay inaan bulshadeena u sheegno shirkadaas iyo shirkadaha kale qaatay inay buuxiyeen shuruudihii loogu talagalay badqabka iyo standardski u yaalay oo process dheer baa soo mareen muddo badan intaan joogaba waa la hadal hayay shaqadeedana waa la waday aniga maanta ay igu horeysaa maamulaha iminku ii sheegay wasiir Muuse wareysanay wasaaradda ganacsiga maanta ay kulan igu horeysaa taasna waxay ka muuqataa inay hay'adu tahay hay'ad transparent shaqadana cid leh iyo maamulka iyo shaqaalaha hoose ay wadaan annaguna aan soo gaarin warshadaha